Waxaa maanta si rasmi ah loo soo gabagabeeyay horyaalka ciyaaraha fudud ee dalkeena Soomaaliya oo dhawaan lagu daafuray magaalada Muqdisho. 29 bishii Diseembar ayaa horyaalka ciyaaraha fudud ee dalkeena Soomaaliya si rasmi ah loogu daafuray magaalada Muqdisho. Furitaanka ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin kala duwan oo ay isugu jiraan madaxda xiriirka ciyaaraha fudud iyo sidoo kale madaxda xiriirada dalka iyo wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha oo ay qayb ka ahayd. Waxaana wasaaradda wakiil ugu ahaa oo ugu soo qayb galay agaasimaha dhalinyarada ciyaaraha ee wasaaradda. Sidoo kale xiriirada dalka qaybahooda kala duwan ayaa si weyn u soo dhaweeyay furitaanka horyaalka dalkeena Soomaaliya. Waxaa lagu daafuray 9 koox ee u diiwaan gashan xiriirka ciyaaraha fudud ee dalkeena Soomaaliya, kuwaas oo kooxaha ay ku loolameen qaybaha kala duwan ee tartanka horyaalka ciyaaraha fudud ee dalkeena Soomaaliya. Waxaana sidoo kale lagu bogaadiyay xiriirka ciyaaraha fudud ee dalkeena Soomaaliya muddadii uu xilkan ay hayeen tartamada waaweyn ay ka soo qabteen iyagoona guulo weyn ay laga gaaray. Sidoo kale tartankan ayaa waxaa xifaaltan aad u dhaxeeyay qaybaha kala duwan ee kooxaha ee u diiwaan gashan xiriirka ciyaaraha fudud ee dalkeena Soomaaliya, kuwaas oo loolan adag ugu jiray. Tartanka ayaa waxaa ku guuleystay kooxda lagu magacaabo Imaan Hospital. Sidoo kale kaalinta labaad waxaa ka soo gashay kooxda Hegan, kaalinta saddexaadna kooxda Horseed ayaa ku soo gashay. Waxaana sidoo kale tartanka lagu bixiyay bilado kala duwan, kuwaas oo ay ku muteysteen ciyaartoyda kooxaha kala duwan ee ciyaarayay, iyagoona biladahaasi la guddoonsiiyay. Waxaana tartanka soo gabagabeeyay gudoomiyaha xiriirka ciyaaraha fudud ee dalkeena Soomaaliya, Marwo Dr. Khadija Aadan Daahir. Sidoo kale waxaa isna tartanka ka soo qayb galay oo soo xiray agaasimaha dhalinyarada ciyaaraha xukuumadda federaalk Soomaaliya Mudane Saacid iyo mas'uuliyiin kale iyo bahda isboortiga qaybahooda kala duwan. Iyo sidoo kale waxaa qayb ka ahaa lajmadii hore ee ciyaartoyda dalka qaybahooda kala duwan, kuwaas oo iskugu jiray hablo iyo wiilal oo ay sheegeen in xiriirka ciyaaraha fudud ay qabteen shaqadii ugu adkeyd muddo kooban oo lagu qabtay horyaalka dalkeena Soomaaliya ee ciyaaraha fudud ee dalkeena Soomaaliya, kuwaas oo lagu ammaanay waxtarka iyo waxqabadka ay soo bandhigeen xiriirka ciyaaraha fudud iyo kooxooda oo la qabtay horyaal aad u xiiso badan oo kaga duwanaa horyaaladii hore oo kaga xamaasad badnaa. Sidoo kale horey ayaa waxaa loo qabtay tartamo kala duwan oo ay qaybaha kala duwan ee xiriirka ciyaaraha dalka ay qabteen koobkii Janno Daa'uud iyo sidoo kale koobkii iskuulada iyo midka degmooyinka oo qayb weyn ka soo qayb qaateen ciyaartoy da'yar oo fursado badan ay ka dhex heleen inay xirfadooda orodka ay ku soo bandhigaan, iyadoona ay kaga mahadceliyeen dhammaan mas'uuliyiinta xiriirka ciyaaraha fudud ee dalkeena Soomaaliya.